ضايع Somaliland كيسك ديدنو ضايع Somaliland كيسك ديدنو ومدى Somaliland كودوديو دمتودا نينكا ودادهaynayo nabada ka daadee daryeelayo bulshada Somaliland kayu baaqayo abdi guulaysa geesiyo ay guulaysa waliga gadaal hamarin gidiba Somaliland hooya gacanta qabo دوميا حسبك معارض كي وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ayaa waxa uu maanta raashin u qaybiyay qoysastan yara oo ku dhaqan degmada Dilay gobolka Awdal raashinkan oo loogu talagalay in ka badan 100 qoys ayaa waxa uu ka koobnaa bur saliid iyo sidoo kale bariis waxa la yiri hibeeba ku siiyay habeen la iskama qaado waxa leeyahay anu hibe inay habeen tahay hodan inuu dhareeriyay boqorku hoodaleeya in kan horay daawada reer dilaado saaka irbay noo horay nago baahan ayuu raashinka ay nagu horay madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxana aad ugu mahadnaqaya farxadaydu saaka way balaarantahay waxa ka jirta dila leeray waa shalay been baa kulmiya loo sheegay waa tara run baa wadani noo sheegay war sidaa ma tahay halkan waa halkii aan wadani ka rarnay markaan guuraynay barwaaqadaasaan tagaynaa Somaliland oo dhan halkaas ay u guuraysaa guurtay ama iibane waxa weeye waad arkaysaan cidda dadka danaynaysa waad arkaysaan cidda la xijecela ka hayso waad arkaysaan ciddii beenta sheegtay maanta raashinkiina waa ka dhawaynay war ma haysaan raashinkii wadani ma keenay beenta yaa sheegay kulmiye beenta yaa sheegay wadani saas u dawshay si kastaba raashinkani uu qaybiyay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxay noqonaysaa mid wax weyn ka tari doonta qoysaska ku dhaqan degmada Dila iyadoo ay jirto abaaro saameeyay guud ahaanba deegaanada gobolada galbeedka Somaliland waa Nuux Kadiye magaalada Boorama